annagu sidaad ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto la socoto bariyahan oo dhan waxaan wada xaajood kula jirnay dawladda waxaan kala hadlaynay qadiyad badan oo ay kamid ahayd qadiyada banaanbaxa waa ogtihiin heshiisaan ku gaarnay banaanbaxa midowga murashaxiinta inuu qaban qaabiyo dawladuna doorkeeda dastuuriga oo waajibka lagu leeyahay xukuumadana ay qaadato oo ah in ay amniga sugto banaanbaxayaasha amnigooda inay sugto waa ku heshiinay waa ku ballanay meeshiyan ku ballanay waxaasoo dhan dood dheer oo waxay soo martay maalin walba meel laga doodayo wax laga doodayo meeshay diideen meel oo lagu xiroonayo isbartiibay waxbay sheegeen duruufaha jira covid-ka awgood dadka in meel lagu xireeyo annagana waa nala khaldantay meel bannaan oo open air oo dadku ay kala durga karaan inaan geynaan go'aanka waa ku adkaysana way aqbaleen waa ku heshiinay daljirka daasoon in banaanbaxa lagu dhigo sidaas ayadoo ay taagan tahay oo ciida amnigi annaga aan saas ugu wareejinay annagana qaban qaabadeenna caadiga aan ku jirno maanta waa ka warqabtaan daljirka waa xiran yahay ma aha daljirka kaliya magaaladoo dhan ma xiran number 4 hadda inta noo jirta ka bilaaw ilaa maxaan ku yiraahdo waxaad geysaa magaalada waqooyiga muqdisho meesha ugu dambeysay magaalada waa xiran tahay ciidana lagu daadiyay wadooyinka la xiray daljirka ciidan badana la dhoobe xiraaba laga dhigay ciidana daljirkii banaanbaxa lagu qaban qaabina laga dhigay marka dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno dawlad meeshan dadka jooga xaaladooda waa sidaas dawladnimayna dhowreyn dastuurayna dhowreyn qawaaniin kalena dhowreyn ballama iyo heshiis lala galaysan dhowreyn mar walbana been inay sheegaan maalin ay yiraahdaan nin ma daljirka daasoon inta tagaa hadlay maalinta dabana ma naqa wixii sheegi doonaan haddana waxay rabaan inay sheegaan waa nasiib darro weyn oo nahaysato dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa marka inay fahmaan laba arrimood qodob waaye meel qof banaanbaxayo tabeelo wato codkiisa inuu cabiro rabo dastuurkan uu ogol yahay ninka ay dhibayseen oo adkaysan karina diidaayo ee jidadka xiraa militariga ciidamada iyo wixii booliisku wixii dhan banaanka soo dhiganayo yaa biri dadka Soomaaliyeed inta soo dhaqaaqaan ayagoo xor inta isku yimaadeen codkooda si xor ay meel ugu ridayaan macnaha ay labadaas arrimooda raba dadka Soomaaliyeed inay isbarbar dhigaan waa qodobka kale ciidamada maanta wadooyinka Muqdisho taagan iyo qalabka ay haystaan ee ay wadooyinka ku xireen ay ku taagan yihiin u haystaan hal la fahmo gabar iyo wiil Soomaaliyeed oo banaanbaxay loo soo dhigay inay u haystaan qatarta shabaab dalkan uu ku hayna meeshii taagantaa ogtihiin shabeellada hoose shabeellada dhexe hiiraan galgaduud gado jubbooyinka meel aanu maanta shabaabkii tahdiid aanu ku hayn oo aanu saas u sii socon malaha jowhara tahdiid ku jirto dhuusamareebaa ku jirto intii ka sokayso dhammaa ku jirta maxaan ku yidhaha jubbooyinka iyo meel walbaa ku jira gadaa ku jirta oo ciidamo fara badan jowhar aan laga qabanay ciidankii loogu talagalay beebayaashii iyo qalabkii loogu talagalay wadooyinka Muqdisho waa ku dhex taagan madaxweynihii hore ee weli ka raaraca maxaan ku yiraahdaa xukunka iyo talada qarka uga dhaganay deyla meesha maanta maray waa intaas dadka Soomaaliyeed inay fahmaan rabnaa annagu markii sida gudoomiyaha u sheegay banaanbixi berri dhici lahaa waa baajinay dibaan u dhignay maalin kama tanasulin mana ka tanasulin waa la qabanaa banaanbixi maalinta la qabanayo ku haboon tahay waa soo sheegaynaa amnigana annaga suganayno ilaan wax kale noo dhiman ma laha hadaan dhaana amnigiina waa kana suga aan jidkii nabad ku soo marno taas ay ka dhalatay hadda inaan banaanbixin dastuurka aan u leeyahay inaan ka tanasulno ma laakiin amnigeena marka sida aan u suga karnay cid aan kaasha karnay inay nala sugto amni inay nagala shaqeyso ugu dambeynta waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo saraakiisha ciidamada qalabka sida waxaan rabaa inaan u sheego war qof uma shaqaysiin qof idan ma qoran dawladda Soomaaliya u shaqaysiin dastuurka idin damaanad qaaday shaqada aad haysiin iyo waajibaadkiina iyo awoodihiina iyo xuduudihiina ay ku xadidan yihiin sarkaalkii maanta meeshaas u taagan gabar Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed oo nabad oo walaashiis ah
inuu hor istaago oo xabad ku rido dib u fikiraan leenahay gadaal u fiirso dib u fikir waa khalad laguguma amri karo qalad sharci darro laguguma amri karo dastuurka inaad ku cayaartid oo ku dheedheeshid laguguma amri karo gacan ku dhiigle inaad noqotidna laguguma amri karo gacan ku dhiigle inaad noqotid laguguma amri karo saraakiisha ciidamada hogaaminaysa waxaan leenahay yaraaw weynaaw sarkaal hoose noqo sarkaal xigeen noqo askari qoristo jidka taagan noqo waxaad samaynaysa ka fiirso hebelaa iilahaay hadhow iyo hebelaa ay ahayd kuma anfacayso mustaqbalaad leedahay weliga aad joogi doontaa dalkan iyo dowladnimadiisa u joogtaa taariikhdana meel xun ha ka gelin rikoorkaaga professionka ee xirfadeed ee ciidanne waxun ha gelinin dad bannaan baxayo xabadeeyey shalay weligaa kaa hari mayso ogow haddaad 100 sano cimrigaagu alla gaarsiiya xataa wixii sharciga ilaali dastuurka ilaali qawaaniinta dhan dalkan ilaali deganaanshaha iyo amniga muwaadinka cashuurtiisa aad ku nooshahay ilaali yaanan khalad ugu adeegsanin fariintaas kaba dambaystaana ciidanka iyo saraakiishoodan u dirayna dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho jooga gaar ahaan iyo kuwa meel walba jooga ee taageerada iyo maxaan ku raad ku kalsoonida dastuurka iyo xorriyadooda muujiyay waxaan leenahay waa mahadsantihiin waa dadaasheen dadaalka wili waa socdaa xuquuqda dastuuriga lagama tanaasulayo waa loo taagan yahay maanta berri madaxweynihii hore xilkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ma hor istaagi karo intuu xilkiisu jirayna dastuurku tamashu ku jiray hadda uu ka degayna waxaad barata waa balaayada la yiri wili waa ku sii raaracwaan ku sii dhagan yahay dadka Soomaaliyeed qatarta dalka uu ku jiro ha fahmaano qatarta dalka uu ku jiro aan maalin walba ka gabanayn oo ka jirnaxayn oo aan gadaal uga sii durkayno ha gabadaan ha fahmaan hanala gartaan gacmahayna iyo codkaynaana ku celi karnaa codkeenaan ku celi karnaa xabada uma baahanin madaafiic inaan qaadano uma baahanin in la isdilo uma baahanin codkeenaan ku celi doonaa maalinta dambe banaanbaxa la ilaamiyo maalintaas noo balanayaan qof soo harin waxa socda waa ujeedaan waa mahadsantii